dib u qaabaynta qolkan yar oo loogu talagalay laba carruur ah ma aha wax fudud. qolku waa ku dhowaad 3.2 mitir times 3.6 mitir oo keliya, markaa haddii laba sariirood si caadi ah la isu dhinac dhigo wuxuu noqonayaa cidhiidhi, mana jirto barayfasi ama asturnaan gaar ah. waxaa kaloo dhib noqonaya halka miisaska iyo armaajooyinka la dhigi lahaa, sidaas darteed xal fiican ayaa noqday in dib loo naqshadeeyo qolka. marka hore waxaa la dhisay biro adag si faraym ah, kadibna bannaanka waxaa lagu dahaaray alwaax si uu u noqdo mid adag islamarkaana raaxo leh. qaybta dhexe layman furfuran baa laga dhigay si hawo u soo gasho oo qoyaan iyo huur looga hortago. dhinacyada derbiyada waxaa lagu dhejiyey barkimooyin jilicsan si ay ugu fududaato in la fariisto ama xitaa la seexdo. labada dhinac waxaa la kala dhigay laba furaash. madaxa sariir kasta waxaa laga dhisay armaajo derbiga ku dhex jirta oo islamarkaas u shaqaysa sida miis sariireed si ay u dhigtaan waxyaabaha yaryar ee ay u baahan yihiin ka hor intaanay seexan. swiijis iyo sokotis ayaa lagu dhejiyey meel u dhow si ay u moobeelada ugu dabaystaan nalkana uga maamulaan. bartamaha u dhexeeya ee geeska waxaa la dhigay armaajo dheer oo labada carruur wadaagaan. hal dhinac waxaa lagu guray alaabta uu wiilka jecel yahay, halka dhinaca kalena lagu xardhay alaabta ay gabadhu ururiso. qaybaha bannaan labadaba si cadaalad ah ayaa loo qaybiyey si aan muran u dhicin. kor waxaa laga dhigay meel lagu kaydiyo alaabta, halka qaybaha hoose lagu kaydiyo cunto fudud iyo waxyaabo kale oo ay u baahan yihiin. daaqad yar oo dhexe ayaa loo yeelay oo bixinaysa iftiin iyo hawo, islamarkaana kala qarinaysa labada cun. markii la doonana muraayada waa la laabi karaa oo meesha dhexdooda waxay noqon miis yar oo ay wax ku wada cuni karaan ama shaqo ku wada qaban karaan haddii ay rabaan in mid walba keligiis ahaado. aayar bay soo daynayaan albaabkii muraayada ahaa, mid kastana dhinaciisa buu wuxuu doono ku samayn karaa. hoosta miiska waxaa lagu sameeyey khaanado laalaaban oo jaranjarana ah, laguna kaydiyo waxyaabahooda gaarka ah. laba albaab oo qaab qalooc ah loo sameeyey ayaa loo sameeyey kuwaasoo kala qaybinaya labada qaybood. dhinac walba waxaa loo yeelay miis iyo sheef si uu mid walba u helo meel uu wax ku barto, ku shaqeeyo ama kombiyuutar ku isticmaalo. markay dhammeeyaan daahooda ayay soo daystaan si ay u helaan xasilooni iyo barayfasi gaara. qaboojiyaha hawada ee aysiga waxaa lagu qariyey saqafka sare, halka armaajo weyn la dhigay hoosteeda. qaybta sare waxaa lagu kaydiyaa bustayaasha iyo agabka gogosha. qaybta dhexe dharka ayaa si nadiif ah loo suraa, halka qaybaha hoose la dhigo alaabta kale ee muhiimka ah. albaabo ayaa armaajada loo sameeyey si ay uga ilaaliyaan boodhka. ugu dambayntii sabuurad alwaax ah ayaa lagu rakibay dhinacan si ay wax ugu sawiraan, ugu ciyaaraan, uguna muujiyaan hal abuurkooda. dib u naqshadayntan yar ayaa qolkii cidhiidhiga ahaa u beddeshay meel qurux badan oo leh qaybo badan oo si fiican loo qorsheeyey, laba goobood oo mid kasta gaar u ah, meel wax badan la dhigi karo, iyo aag waxbarasho oo casri ah oo loogu talagalay labada carruura. ka waran adiga farsamadan ma keeni lahayd? muuqaalka leeg saar leejan ama leejamad.